إلهي وحلي ومن أعرض عن ذكري أنيق هنونكيغا نينكا كوعدانا فإن له معيشة ضنكا وحلي نولل عديدية با إلهي سبحانه وتعالى نولل عديدية نولل أن دقناشية لهين نولل حسلوني دو كم مقنطهي نولل أن سعادة لهين نولل أن راحة قلبيات لهين نولل عذابكي جهنم يتكدم بايو oo iyana haddii mar qura lagu qoosiyo waxaad soo dhadhamisay baa ana dareemaynin waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka aakhirana wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma aakhirana isagoo indhala ayuu soo xaadiraya bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu imanayo isagoo summun bukmun cumyuna inuu imanayo qofka indhaali طريقة صوابك ماركو لكن وهاد لكرا ورحقان مرابو أوران كرا هدي أفكا لغا حدانا عدنا يعاوي أوران كري ميسيد لكن وابا لغا يبان قفكوكو تطوعوكو دا وركوع ماشاها كل عيني دقاهنا ولا يبالي إذن أداة النجاة الدمان تدبوا بيليا لما عاوين كرو ويساقوا وحمار كيو وعاوين ممد البان كريو إيوه اللهم يابا إلهي إلهي سبحانه وتعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلهي محاد أنقو سيدنا يسو حاضر سيبولي أنقو مد وحرك شرية قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى آياتك يجب كوي مبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى دفتنا واتسكاي دمرت نسوا الله فنسيه آياتك يجب كوي مبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى واتقرب مرت sida awgeed ma helaysid wax ku gargaara basharka dunida ku nool ee ilaahay diiday subxaanahu wa tacaala baadinimo dhammaanteed wuu tijaabiyey xadaaraat dad mujtamacaad bulshooyin ayaa tijaabiyey albaabka waddada alle in la iska xidho bal wixii kaleba la tijaabiyo taariikhda laguma hayo ummad liibaantay waa la hayaa ummad jaanib waxoogaa ka yaro kororsatay ama dhaqaale ama wax kale laakiin cidhiidhi nololeed dhammaanteed ku jira sida daraaddeed maanta bashariyadu waxay ku nooshahay cidhiidhi halkii u dambaysay aqoon-yahan badan oo ka tirsanina wuxuu arkayaa waddada la hayaa inaanay wax nololi ka suurtagala ahayn laakiin hal min makhraj meel looga baxa ma la hayaa dariiqii ilaahay ciddii ka weecatay nolosha way ka quusatay sidaa awgeed waxay tilmaamaya maalan isdilka waalida mashkiladda caalamka waa ku sii badanaysaa kibirka qooqa waa dulmi duwalkan dhan ee dhulka lala goynaya ee hubka lagu tijaabinaya waa alla ka fogaanshiyuhu wuxuu dhalay in basharku is addoonsado is cabiidsado in qaar dhulka loo gooyo in khalqi dhan beriiskooda shidaal laga dhigto in dadku madhaan waa dalaalka dunida yaalla maanta in la yidhaahdo dadka waaweyn iyo waxa istileeskaga kaale xisaa'iyaadka ghariibka ah maraykanka bay yidhaahdaan 25 milyan oo muraahiq teenager baa jooga bay yidhaahdeen 25 milyan ee teenager half a million baa isku daya sanad kasta inay istilaan bay leeyihin hadda waa dhallinyaradii baan ka warramaya kuwa waaweyn iyaga idinka warrami maayo tiradooda ninku da'da yartahay waa markaanu dunidaba wax badan ku ogeyn laakiin da' yarto hadday bilowdo in iyadu isciijiso ka warran waa da'dii aan mushkilaadka nololeedba weli waajihin ayaa waxay tilmaamayaan nus milyuun bini aadamkaa yaryari inuu isku dayo inuu isdilo waxay leeyihin 6,000 oo carruuraa ku guulaysata inay nafta iska qabato waa wax aad u cajiiba waxay leeyihin waddannadan industriyalka ah qaybtooda badan
rafli bay yidhaahdaan every 10 years xanuunada waalidaya wixii ku tacalluqa way laba laabmaan 10kii sane kasta way tiro bataan waddannada waaweyn aragteen qaar ka mid ah inta dhakhaatiirta maskaxda iyo waalida ka shaqaysaa waxay iskaga badan tahay dhakhaatiirta kale oo dhan marka la isku daro baahidaa keentay in dadku waalida u bato waxay ku tilmaamaan suicideku daayartu bay yidhaahdeen isdilku waa shayga saddexaad ee waxyaabahay u dhintaanba labada kalena bay yidhaahdaan waa accidentka gawaadhida iyo dilka tooska xabadda la ysku dhufto waa nolol quus joogta bale waa nolol kadeed joogta waa nolosha kaliftay markii dawladahan qaar ka mid ay arkeen dadkoodii iyo naftuun iska jaraya dad lacag haysta oo dhaqaalo haysta oo wax haysta haddana naftuun iska jaraya ayaa dawladaha ka mida waxay tidhi waa reerdhaha aan isku dayna inaynu ogaanno sababta dadkeennu isu dilayaan dabeetana dawladdaa waxay go'aan qaadatay in la sameeyo meel dadku isku dilo oo dawladdu leeday waa manxar bashari slotary halkii xoolaha lagu qali jiray meel dadka lagu qala inay dawladdu furto oo waayo waxay yidhahdeen waxaynu rabnaa inaynu ogaanno waxa ka dambeeya maxaa ka dambeeya waxay yidhahdeen qofka raba inuu isdilo kow marka hore ha laga qoro questionnaire sheegaya bal sababtuu isu dilayo waxaanuu nolosha u nacay dhallinyarada waxaa caana waxay yidhaahdaan noloshaan ka daalay bay yidhaahdaan markaa inaan ka baxaa baan rabaa waa ka daalay bal dadku waxaanay nolosha uga daaleen in la weydiiyo waxaanay isu dilayaan in la weydiiyo si cilmi baadhis loogu sameeyo waxaan in la dawayn karo ka labaad bay yidhaahdeen in la isku dayo dadka in la qancin karo aqoon-yahanana ha la dhigo dadka la taliyo oo nolosha jeclaysiyo yidhaha war isdiline naftaada hayso oo baaqi noqo hadday intaasi suurtoobi weyda bay yidhaahdaan qofka ha laga qoro dardaaranka oo qadaayaadkan dhaqaalaha iyo waxa kan iyo wixii lagu lahaa iyo wuxuu cid ku leeyahay iyo hantidiisa iyo bal waxa laga sameeyo intaa kadibna ha loo sheego sida ugu fudud ee loo dhinto laysu dilo dawladdaa sheegaysa marka waxaa la leeyahay noocaas irbad baa lagugu mudayaa intaasoo daqiiqa qaadanaysa inaad dhimato noocaas waxaasaad samaynaysaa intaasoo daqiiqa qaadanaysa ifra ha loo kala ha la dooransiiyo siduu isu dilayo waa la go'aamiyey waana la furay waxaa la moodayaa wal dadka isdila inay dad yar yihiinuun waddanka dadkii joogay in badanoo ka midun baanba meeshii kuyuu qabsatay shaqaalo badan bay meeshii u baahatay dadkiina wuxuu wada damaaciyey inuu isdilo dabeetana qadiyaddii waa soo karto oo dawladdii waxay tidhi khatar baa lagu sugan yahay dadkiiba kuyuugu haysta maxaa xal ah waxaa la yidhi baabka aan iska xidho nin waliba gurigiisa isku ciijiye ayay dawladdu waxba ka geysanine ha la joojiyo waa la joojiyey maxaa ka dhigay ummadi meel laysku biraynaya inay kuyuuga u haysato kuyuug gowraca inay dadgalaan maxaa ka dhigay wax maqan baa jiroo dadku la'yihiin maxaa ka dhigay bugaagta maraykanka bay dhaaheen bugaagtii bestsellerska ugu fiicnaaye la iibsada waxaa ka mid ahaa buug ka warramayay sida laysu dilo maxaa ka dhigay buugga dadku ugu gadasho badayen inuu ka warramo sida laysu dilo dadkaa u baahnaa inay dhintaan waxaanay u baahnayn may sameeyeen maxaa ka dhigay inay falaasafo waaweyne doctor rushdi fakar caalimkii muslimka ee la odhan jiray geeriyooday alla u naxariisto ayaa wuxuu sheegayaa oo leeyay axad alfalaasafa alfaransiyiin buu ka warramay oo maalin maalmaha ka mida gurigiisii isagoo jooga buu arkay islaantii uu dhalay xaaskii uu qabay oo faraxsan dabeetana intuu middi soo qaatay buu dilay oo islaantiisiioo faraxsan booliiska intuu u tegay buu yidhi xaaskii baan dilay markaa shaqadaada qabso waxay yidhahdeen booliiskii baaba yaabay say waa filosof hebel waa caqligii waddanku ka dambeeyey wasiiru daakhiliya la waco waxaa la yidhi nin baa jooga halkan sheeganaya caynka ayo hebelah bal suga baa la yidhi arrintii janankii booliiskiiyo wasiiru daakhiliya wixii waxay dhaafto madaxweynahay tagtay waxaa la yidhaha waa giskaadh markuu madaxweyne ka ahaa
waxay gaadhay akhiiran in la yidhahdo war bal ha la yaro dembabaso ninkan ha la qabadsiiyo musixaat alcaqliya meelaha dadka waalan muxuu u dilay waxaa philosophy uu rumaysnaa un philosophigan la yidhahdo existentialist alfalsafa alwujuudiya waxay aaminsan yihiin aakhira ma rumaysna haye waxay leeyihin dunidu rarrafaadun bay noqotay waa kadeeduun waad soconaysaa waad dhimanaysaa uun marka waxay leeyihin qof waliba wuxuu ku jiraa dagaal gebagabadiisa uu garanayo inuu dhimanayo dee maxaad ka daalaysaa bay leeyihin haddaad dhimanayso hore isaga dhimo meeshani noloshuba waa cabad waa dheeldheel waxoogaa unbaad joogaysaa waad dhimanaysaa waa philosophy dhan oo ummadi rumaysantay mar haddii ay geeri ku gebagabo noloshu bay dhahay waa alam markaa waa uun xanuun intanaad nooshana dhibuun baa ku haysato waad kadeedantay marka waxaan quri aanu awoodnaa bay yidhaahdeen waa in sidaan u dhimanayo un inaan doorto marka waxaan arkay buu yidhi xaaskaygiioo faraxsanoo waxaan is idhi kollay barray dhibtu haleeli doontaa iyadoo faraxsan dunidaa ka dhimatay wuu u naxariisanayay islaantiisa kadib waxaan islahaa buu yidhi iyadoo faraxsan ha ka baxda dunida maxaa ka dhigay bashar inuu sidaa u fakaro waxa weeyaan albaabadii noloshaa soo xidhmay waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma arrintan markaan ka hadlaya maaha meel isla weyniya inaynu istaagayno oo dadka kale u aragnay inay yaryar yihiin ama waxba garanaynin waxa weeyaan basharkoo dhan ayaynu u baahanay risaaladii ilaahay u soo diray inuu fahmo ha caddaado ha madoobaado nooc kale ha ahaado waxaan leenahay basharku wuxuu hayaa hayway qaldan oo meel daran ku wada hayway qaldan baa la hayaa waxaa loo baahan yahay correction la sameeyo in la saxo dadka kan oo ariiqa saxaa loo tilmaamo ariiqa saxii waa kee ilahay wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilah yajcal sadrahu dayiqan xarajan kaأnama yasacadu fi الsama kadalika yajcal allahu الrijsa clى اladina la yu'minuun ilaahay wuxuu leeyahy qofka alla ula rabo inuu hanuuno ee qaata wasaa'ishii lagu hanuunayey ilaahay baa laabtiisa islaamnimada u sharxa laabtiisaa ballaadhata islaamku haleela toojka ilaahay uu nolosha inoogu ifiyey buu aqbalaa inuu ifsado qofka kalena ee diida ariiqa ilaahay inuu raacana ilaahay wuxuu leeyahy waman yurid an yudilahu yajcal sadrah laabtiisa waxaa laga yeelaa dayiqan xaraja mid cidhiidhiya oo ficilka samayntiisu dhib ku tahay